أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. maanta waa sabti 8 jamaadul awal 1443 hijrada 1 janaayo 2022 miilaadiga. waxaana jooga maka almukarama. waxaan akhriyayaa siirada gabdhaha nebi maxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam oo afarta ah. waxaana ka bilaabayaa siirada Zaynab alayhi salaam. Zaynab gabadha Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ayada ugu weyn gabdhihiisa oo Ibnu Isxaaq wuxuu wariyay inay Zaynab dhalatay markay 30 sano ka soo wareegatay dhalashadiisa sallallahu alayhi wa alihi wasallam ahna 10 sano bictada horteed. Zaynab nabinimada iyo islaamka way soo gaartay wayna islaamtay. almadiina almunawwara ayay hijradii u hijrootay mar ku beegan duulaanka badr dabadiis sidoo ibn isxaaq u wariyay una ka wariyay caaisha alayha salaam. Zaynab waxaa la oofsaday sanadka 8aad ee hijrada ayadoo 30 jir ah sidoo al-Waaqidi uga wariyay Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm. waxaa sidoo kale u sugay Ibn Hajar al-Asqalani oo ku sugay kitaabkiisa al-Isaaba. ayagaas qeyrkoodna isla sidaas ayay wariyeen. Zaynab waxaa lagu oofsaday guriga ninkay u dhaxday oo isla markaasna ah ina habaryarteed koofartiisuna tahay Abu al-Aasi magaciisuna Qaasim siday u wariyeen as-Suhayli iyo Ibn Hajar oo Fathul Baari sidaas ku sheegay. Abu al-Aasi magaciisu buuxana waa Qaasim ibn Rabi' ibn Abd al-Uzza bin Abd al-Shams bin Abd Manaf al-Qurashi al-Abshami. oo Abd al-Shamsgan waa Hashim mataankiisa weeye. Abu al-Aasi hooyadiisa dhashay waa ummu al-mu'miniina Khadija bint Khuwaylid walaasheeda magaceedu yahay Hala bint Khuwaylid oo ayada lafteedu saxaabiyad ahayd. Hala ayaa mar nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam ka idan qaadatay inay u soo gasho waana kadib markay Khadija dhimatay. markaasuu sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu aqoonsaday idan qaadashadii Khadija markaasuu naxay wuxuuna yiri Allahumma Hala Allah ilaahayow Hala sidoo al-Bukhari Aisha uga wariyay. Ali wiilka Zaynab alayhi salaam. Zaynab waxay Abu al-Aasi u dhashay wiil la yiraahdo Ali saxaabina ah sida aabihiis oo kale kana mid ah al-asbaat nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa qabaa'ilka ka farcamay. sabti yahuuda afkoodu ahaa waa qabiil arabigana hadii waxaba lagu yiraahdaa qabiil. marka caligan waxaa ka farxamay qabiil ka mid ah qabaa'ilka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ka farcamay. Ali waxaa nuujisay haweenay u dhalatay reer bani Ghaadira ama Ghadira. markaasuu nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam ka soo qaatay ayadoo uu Abu al-Aasi markaas Makka al-Mukarrama ku sugan yahay isagoo weli gaal ah. markaasuu wuxuu nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam yiri man sharakani fi baniya فأنا أحق به منه وأيما كافر شارك مسلما في شيء فالمسلم أحق به منه. حديث معنيه سوحاوي قفك عرورتي إذا إلى وذاقة أنا إساقا أوغا حق له
ومعنى وحوي هدي قفكي قبر أشراف ما أنت قرسده وسوى أن أشراف أهين قبيل كلا كمد عربتا وأي عرور قدشو عرور تاسي وعرورتي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإساق آبيهيس وحق بدن ووحي كمديهين أهل البيت كويه حديث كان سيوانو قف والبا وقال ومسلم شيء كل شركوبنا مسلم كأيا إساق شيء غاس وحق له ابن حجر أيا الإصابة كوري وحكلو وريي الطبراني wiilkaasu wuxuu dhintay markuu da'da lagu qaangaaro u dhowaaday kadib dhimashada hooyadiis isagoo uu markaas aabihiis nool yahay siduu azubayr ibn al-bakar uga wariyay umar bin abi bakar al-musili ibn asakirna wuxuu yiri culimada cilmiga nasabka ku xeel dheer waxay sheegeen in ali lagu dilay duulaanka maalinta yarmuuk sanadka 12 ee hijrada ahdiga abubakar as-siddiq allaha raali ka ahaade ali wuxuu hasha rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wa sallam ka saarna xagga dambe dhabarka rasuulka sallallahu alayhi wa sallam maalintuu nabigu sallallahu alayhi wa sallam maka al-mukarrama furtay umaama gabadha zaynab alayha salaam zaynab waxay kaloo abul aasi u dhashay gabar magaceedu yahay umaama ahna gabarta uu nabigu sallallahu alayhi wa sallam tunkiisa ku qaaday salaada subax isagoo tukanaya sidoo uu wariyay azubayr ibn bakar أبو داودنا وحو أبو قتادك كوريه إنو يري أنه رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم سوينا وصلاة الظهر أما عصر أي إنو صباحي ونبي صلى الله عليه وسلم قرقيسة والباب مجدك أفر ملك الصباحي أيضا أي أمامة تنكيس سارنتهي مركزو صلاة أو استاغي أنه aan gadaashiisa u istaagnay sidaasoo kale wuxuu imaam maalik ku wariyey kitaabkiisa al-muwatta al-bukhaari iyo muslim waxay ayaguna ka wariyeen abu qataada inuu rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wa sallam tukanayay isagoo umaama xambaarsan markuu sallallahu alayhi wa sallam sujuudo ayuu dhulka dhigaa markuu istaagana uu qaadaa muslim wuxuu yiri markuu sallallahu alayhi wa sallam rukuuco dhulka ayuu dhigaa markuuna madaxiisa sujuuda ka soo qaado ayuu soo celiyaa wuxuu nabigu sallallahu alayhi wa sallam sidaas u yeelayaa isagoo umaama jeclaa una naxariis badnaa إمام أحمد وحو عائشة كوري إني تري النجاشي وأها بقرك حبشة أمحارة أيا وحو هديد أهان ووصو دري حلة ووحي هوينكو حرتان وقال لي سيدة مريدة ذهبك أوكله ونكجر فرقشي ذهب فسكيسنا وحبشي يهي مركاسو أمامة سيي ابن سعد يا أحمد يا أبو يعلى وحي أيقنا عائشة كوريين إني تري أهديت له هدية فيها قلادة جزع معلمة بالذهب ونساؤه كلهن مجتمعات في بيت وأمامة تلعب في جانب البيت بالتراب فقال كيف ترين هذه فنظرنا إليها فقلنا ما رأينا أحسن منها ولا أعجب
فقال لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي. فقالت النساء ذهبت بها ابنة أبي قحافة. فدعا صلى الله عليه وآله وسلم أمامة بنت زينب فعقدها بيده في عنقها، وكان على عينها عمص فمسحه بيده. وفي رواية فأقبل بها حتى وضعها في رقبة أمامة فسري عنها. xadiidka macnihiisu waxaa weeye waxaa loo keenay nebiga sala allahu calayhi waali wasalam oo loo hadiyeeyey hadiyad ay ku jirto qoor xir iyo xariir dahab ah, xariir dahab lagu dheehay oo lagu calaamadeeyey dahab, iyadoo ay haweenkiisu kulligood guri ku wada kulansan yihiin. umaamana ay guriga dhinaciisa ay ciid ku cayaarayso. markaasuu sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu yidhi, sidee baad middaan u aragtaan? waa hadiyaddee. markaasaan fiirinay aanan nidhi wax ka qurxoon hore uma aanan arag, kana yaa badan. markaasuu wuxuu sala allahu calayhi waalihi wasalam yidhi, waxaan siinayaa qofka aan ehelkayga ugu jeclahay. markaase haweenku waxay yidhaahdeen, haddaba waxaa qaadatay oo la siiyey gabadha abi quxaafa oo ah caaisho lafteeda oo uu nebigu jeclaa. markaasuu rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu u yeeray umaama gabadha zaynab oo uu markaas gacantiisa qoorta ugu xiray, iyadoo waa gabadhee uu indhaha cunnada la yidhaahdo alcamsu uga taallo. markaasuu sala allahu calayhi waalihi wasalam gabadha indhaheeda cunnadaas ku taalla gacantiisa uga tirtiray. umaama waxaa guursaday amiir almu'miniin mowlaaya alamiir alimaam cali bin abi aalib calayhi salaamu, iyadoo ay faatima calayha salaamu kala dardaarantay iyadoo dabadeed inuu umaama guursado. waxaana u guuriyey azubayru bin alcawaam iyadoo uu umaama aabbaheed azubayru kala dardaarmay. cali waxaa la dilay isagoo ay u dhaxdo. intuusan dhimanna wuxuu kala dardaarmay almughiira bin nawfal bin cabdulxaarith bin cabdilmutalib bin haashim inuu guursado isaga dabadiis. markaasuu almughiira geerida cali calayhi salaamu kadib guursaday, waxayna u dhashay wiil la yidhaahdo yaxyaa oo isaga lagu koofaari jiray oo la oran jiray abaa yaxyaa oo ah yaxya aabbihiis. umaama waxaa la oofsaday iyadoo almughiira u dhaxda. waxaa kaloo la sheegay inayan cali iyo almughiira ayn midkoodna caruur u dhalin. hijrada zaynab. ninkay zaynab u dhaxday oo ah abulcaasi wuxuu ka mid ahaa gaalada uu rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waalihi wasalam maalinta beder ku soo qafaalay. gaar ahaan abulcaasi waxaa soo qafaalay saxaabiga la yidhaahdo cabdullaahi bin jubayr al ansaari. ibnu isxaaq wuxuu yidhi, keyrkiisna waa yidhaahdeen, markuu abulcaasi duulaanka beder lagu soo qafaalay isagoo weli markaas gaal ah, nebiguna sala allahu calayhi waaalih wasalam uu ku manaystay inuu xoreeyey. markuu maka almukarama ku soo laabtay ayuu wuxuu zaynab calayhi asalaam ku amray inay xagga aabbaheed sala allahu calayhi waaalih wasalam u haajirto oo ay u guurto almadiina almunawara. dhacdadaasi waxay ahayd hal bil in xoogaa ka badan dagaalka beder dabadiis. markaasay zaynab socdaalkaas isku diyaarisay. markay zaynab diyaar noqotay ayuu wuxuu ku qaaday hawdaj. hawdaj waxaa la yidhaahdaa aqalka yar oo haweenka ratiga lagu qaadayo looga kordhiso
si ay u asturanto uuna dabaysha iyo kulaylka iyo qabowga iyo ciidda iyo roobka iyo isha dadkaba uga dhowro. rati korkiis uga dhisay hawdaj uuna hoggaankiisa hayo isaga walaalkiis oo magaciisu ahaa Kinaana ibnu Arrabiic. Kinaana wuxuu watay qaansadiisa iyo gabooye ay fallaaro ugu jiraan. markuu la dhaqaaqay oo xagga almadiina almunawara ula kacay ayaa waxaa ka soo dababaxay rag Quraysh ah ugana daba tegay meesha la yiraahdo Dhiituwa maanta Maka bartamaheeday ku jirtaa, Kacbaday waxay u jirtaa dhowr boqol oo mitir. raggaas waxaa Zaynab ugu horeeyay niman kala yiraahdo Habbaar bin al-Aswad iyo Naafic bin Cabduqays al-Fihriyi. midkan dambo mar dambe islaamay. markaasuu Habbaar gabadha warankiisa ku cabsiiyey ayadoo markaas xaamilo ah oo uur leh. markaasay ratiga ka soo dhacday, cunugiina uu ka soo dhacay. markaasaa waxaa kacay dumaashigeed Kinaana oo intuu fallaarihiisa hortiisa ku daadiyey ayuu wuxuu yidhi, wallaahi inaan ninkii ii soo dhowaada waa Zaynab iyo isaga laftiisa, oo Zaynab u soo dhowaada fallaar ku dhijinayo. markaasay ka kala carareen. markaasaa waxaa Kinaana u yimid Abu Sufyaan bin Xarb oo ay la socdaan madax badan oo Quraysh. wuxuuna Kinaana ku yidhi, war naga jooji fallaarahaaga, inaan kula hadalno ayaan doonaynaaye. markaasuu fallaarihiisa ka celiyey. markaasuu intuu u yimid ayuu Abu Sufyaan wuxuu ku yidhi, waad ogsoon tahay musiibada na haleeshay iyo dhibaatadu Maxamed sallallahu calayhi waalihi wasallam noo geystay. marka haddaad gabadhiisa ayadoo uu dadku u jeedo la baxdid, dadku waxay u malaynayaan inay taasi ku ahaatay dulli ka yimid musiibadeenna. musiibadaasna waa jabka Badar gaalada reer Maka al-Mukarrama lagu jabiyey, oo wax la dilay 70 nin ayaa laga dilay, 70na waa laga qafaashay, iyo wax cararay noqday oo dhabarka jeediyey iyo taag darro. annaguna inaan gabadha aabbaheed sallallahu calayhi waalihi wasallam ka celino dan kama lihin. markaan Maka kula noqo oo markuu hadalku damo laguna sheekaysto inaan Zaynab soo celinay, si sir ah ula xuluulo aabbaheedna sallallahu calayhi waalihi wasallam ka dabagee. Dhiituwa markaas Dhiituwa meeshaas la yiraahdo Dhiituwa waxay hadda ka mid tahay magaalada Maka al-Mukarrama, oo waa la degan yahay, oo waxayba ku taallaa xaafadda la yiraahdo Jarwal. waana meesha ay ku yaalaan xaafadaha la kala yiraahdo Cutayba iyo Jarwal iyo Atandabaawa iyo Xaratu albarnu. oo albarnu waa qabiil ka mid ah dadka Nigeria dega iyo gobol Nigeria ka mid ah, oo dad asalkoodu halkaas ka yimid ayaa halkan dega. macluumaadka Dhiituwana waxaan ka soo qaadatay Albalaadi iyo inta badan ee wadada la yiraahdo Shaaricu Almansuur iyo Alliit. magacaasu wuxuu hadda ku kooban yahay ceel xaafadda Jarwal ku yaala oo la yiraahdo Bi'ru Tuwa, ahna bartuu nabigu sallallahu calayhi waalihi wasallam kula hoyday jeyskiisa jeyshul fatxi maalintuu Maka furtay oo ahayd habeen jimce soo gelayo. walaalaheen reer Maghrib waa Morocco waxay ku dadaalaan booqashada ceelkaas iyo inay biyihiisa wax ka cabaan. waxaana warkaas ka soo qaadanay kitaabka la yiraahdo
معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية وندقي عاتق بن غيث البلادي الله أن حريسته دنبقي سنة دافع ووحبا ذنبان كبرت الانكاس. هند بنت عتبة وحالك زينب عليه السلام باريسة ابن إسحاق وحيري وحال وريه إني زينب عليه السلام تريه بين أنا أتجهز بمكة للحوق بأبي لقيتني هند بنت عتبة فقالت يا بنت محمد ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ قالت فقلت ما أردت ذلك. فقالت إيه ابنة عمي لا تفعلي إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق في سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك فلا تضطني مني فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. قالت والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل. قالت ولكني خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك وتجهزت. حديثك معنيس وحاوية أنيقو مكجوغا أو اسكو ديارينيا إنان آبهي صلى الله عليه وآله وسلم كدبتغو أيا وحا إلا كولانتي أو إيتمد هند بنت عتبة. هند وهوينتا أبو سفيان بن حرب يهويدا الشيء معاوية بن أبي سفيان آبهدنا وعتبة بن ربيعة أو حمزة كدلي أما عبيدة أي كدلين maalinta badar markaasay waxay tiri ina maxamedey sala allahu calayhi waalihi wasalam soo ima ayan soo gaarin inaad doonaysid inaad aabbaha sala allahu calayhi waalihi wasalam ka daba tagtid. markaasaan waxaan ku idhi taas ma doonayn. markaasay waxay tiri in adeertayey ha yeelin haddaad u baahan tahay mataac safarkaaga kuu sahli kara ama maal aad ku gaartid aabbaha sala allahu calayhi waalihi wasalam anigaa kuu haya waxaad u baahan tahay marka ha xishoon ayadoo uusan haweenka kala dhex gelin waxaa ragga kala dhex gala. zaynab waxay tiri wallaahi uma aanan arag inay sidaas u tiri inay waxaas ay tiri yeesho mooye oo ah inay aabbaheed sala allahu calayhi waalihi wasalam ka daba tagto ayaduna ay sahay siinayso hadday u baahan tahay laakiin ayadan ka baqay markaasaan isdiyaariyey. waa intaas warka ibnu isxaaq u wariyey. zaynab waxay hijrootay habeennimo sidaasuu abuu sufyaan ku taliyey sidaas uu abuu sufyaan ku taliyey ayuu kinaana yeelay oo zaynab maka almukarama dib ugu soo celiyey halkaasoo ay habeenno joogtay. kadib habeennimo ayuu la baxay uuna waday ilaa uu hoggaanka ratigeeda uga dhiibo oo uu gacanta u geliyo zayd bin xaaritha calayhi salaamu iyo saaxiibkiisa ansaarta ka mid ah labadaasoo uu nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam u soo diray uuna ku amray inay istaagaan bartamaha waadiga ya'jaj halkaasna ay ku sugnaadaan ilaa ay ka soo marto zaynab. wuxuuna yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam kuunaa bibatni ya'jaj xataa tamura bikum zaynab faasxabaaha xataa ta'tiyaanii biha. xadiidka macnihiis waxaa weeye ku sugnaada bartamaha waadiga ya'jaj ilaa ay idinka soo marto zaynab markaas soo raaca ilaa aad aniga iga keentaan. markay zaynab halkaas soo martay ayay kinaana kala wareegeen oo ay aabbaheed nebi maxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam u keeneen oo ay gacanta u soo geliyeen.
الطبراني وحو إساقنا عبد الله بن الزبير كوري إنو يري نين أيا زينب حق المدينة المنورة أصوضي مركاسا وحا دبقالي وكدبتغي لما نين أو قريش markaasay ninkii waday uga adkaadeen oo ay ratigay saarnayd ka soo tuureen oo ay dhagax weyn ku soo kordhacday markaasuu cunugay uurkiisa lahayd ka soo dhacay dhiig badanna uu ka baxay markaasay intay qaadeen waxay u geeyeen Abu Sufyaan bin Harb Abu Sufyaan gurigiisa ayaa markaas waxaa Zaynab ugu yimid haweenka reer Bani Haashim markaasuu Abu Sufyaan Zaynab haweenkaas u dhiibay oo siiyey markaas kadibna way hijrootay Zaynab way dareemi jirtay xanuunka maalintaas gaaray oo kama uusan tegin ilaa ay ka dhimatay sidaas daraaddeed ayuu wuxuu dadku u arkayay inay Zaynab shahiidad tahay waxaad moodaa inuu Abu Sufyaan markuu dumaashigeed soo celiyey uuna beer dulucsaday oo uu markaas gurigiisa geeyey si uu taas caan ugu noqdo oo loo ogaado inuu isagu Zaynab Maka al-Mukarrama ku soo celiyey markaasay markay haweenka reer Bani Haashim u yimaadeen ayuu ayaga u dhiibay sababtuna waxay tahay inuu Abu Sufyaan faanka jeclaa Zaynab waxay haajirtay Abu al-Caasi hortiis waadi Ya'jaj waa waadi ka mid ah waadiyada Maka al-Mukarrama xagga waqooyina ka xiga at-Tanciimu oo ah meesha uu ku yaalo masjidu Caaisha calayha salaam waadi at-Tanciim ayaa ku biyo roga waadi Ya'jaj kuna roga dariiqa almadiina almunawara loo aado meel dariiqaasi gooyo oo kacbada 10 kilomitir waqooyiga ka xigta hadda waxaa loo yaqaanaa Yaaj waxaana dega qabiilka Lixyaan oo Hudayl ka tirsan sidaas waxaa yidhi albalaadi waxaa sidaas sheegay عاتق بن غيث البلادي وقلنا شاقي كتاب كيسا معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية هبار ديجيسو وحلالوبي ابن إسحاق وحيري أبو هريرة وحيري رسولك إلهي صلى الله عليه وآله وسلم أيا وحو دري عيدا دولان وأن أنيقو كجرو وحونا نقويري إن ظفرتم بهبار بن الأسود أو الرجل الآخر الذي سبق معه إلى زينب فحرقوهما بالنار حديث كما عنه سوحوي هداد قبطان هبار بن الأسود ينينك كالي أو ابن هشام يري مقعيسو نافع بن عبد قيس دب كقبة لبضا حديثك وحاوريي الدارمي iyo ibnu abi shayba maalintii taas ku xigtay ayuu sallallahu alayhi wa alihi wasallam noo soo cidiray markaan u nimidna wuxuuna yiri inni kuntu amartukum bitahriiq haadayn ar-rajulayn in akhadtumuhuma thumma ra'aytu annahu la yanbaghi li ahadin an yu'adhib bin-nar illa Allah fa in dhafartum bihima faqtuluhuma حديثك معنيس وحاوي وأنيقي إذن أمري إناد لبداس نين قبتان هداد قعنت كدكتان كدبنا وحانو أركي إنين أحد نؤهبونين إنو ضب وحكو عذابه إلهي مويه مركا هداد لبدو قبتان دلا زينب oo soo dhiibtay madax furashada Abu al-Caasi ee Badr
ibnu isxaaq wuxuu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam intuu maka almukarama joogay waxna ma xalaalayn jirin waxna ma xaaraantimayn jirin isagoo amarkiisa looga adkaa oo dowladda maka almukarama ka dhisnayd gaalo ayay ahayd islaamka ayaana zaynab gabadha rasuulka ilaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam iyo abu alcaasi bin arabiic kala geeyey rasuulka ilaahayna sala allahu calayhi waaalih wasalam ma uusan karin inuu kala furo oo weli sooma ayan degan aayadda 221 ee suuratulbaqara oo odhanaysa walaa tunkixu lmushrikiina hana u guurinina ragga mushrikiinta ah sidaas ayay zaynab abulcaasi agtiisa ku ahayd iyadoo muslimad ah isaguna uu gaalnimadiisii weli ku taagan yahay ilaa uu rasuulka ilaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam ka haajiray oo almadiina almunawara u haajiray markaasi markay qurayshi beder tagtay waxaa la socday abulcaasi bin arabiic markaasuu wuxuu ka mid noqday ragga qafaalka maalintaas beder ay muslimiintu gacanta ku dhigeen markaasaa loo qaaday almadiina almunawara oo uu nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam agtiisa joogay isagoo qafaal ah ibnu isxaaq wuxuu wariyay inay caaisha tiri lamaa bacatha ahlu maka fi fidaa'i أسرائهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فداء أبي العاص ابن الربيع بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا فقالوا نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذي لها حديثك معنيس وحاوي markay reer maka soo direen maalka madax furashada ragga laga qafaalay ayay zaynab gabadha rasuulka ilaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam waxay soo dhiibtay madax furashada abulcaasi ibnu arabiic markaasaa waxaa ka mid ahaa maalkaasna waxaa ka mid ahaa tay haweenku qoorta ku xirtaan oo ay hooyadeed khadiija lahaan jirtay ayna gabadheeda siisay habeenkii abulcaasi loo aqalgeeyey waxay tiri caaisha markaasuu markuu rasuulka ilaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam arkay ayuu aad u beerjilcay beerjilic xoog leh wuxuuna yidhi oo ku yidhi ansaartii haddaad sidaas u aragtaan oo ay idinla noqoto inaad qafaalkeedana u sii daysaan maalkeedana aad u celisaan sidaas yeela markaasay sidaas yeeleen waxayna yidhaahdeen waa yahay rasuulka ilaahayow sala allahu calayhi waaalih wasalam markaasay isagiina sii daayeen maalkeedana u celiyeen zaynab oo abulcaasi magan gelisay ibnu isxaaq wuxuu yidhi furashada maka almukarama in yar horteed ayuu abulcaasi ganacsi ugu safray xagga ashaam isagoo wada maal uu leeyahay iyo mid ay ragga quraysh ah u dhiibteen isagoo ahaa nin aamin ah oo la aamino markuu ganacsiga shaam ka soo jeestay ayuu alcaasi wuxuu u soo gadoomay xagga maka almukarama markaasaa waxaa dariiqa ka helay ciidan muslim ah markaasay maalkii oo idil kala wareegeen oo ay khaniimaysteen isaguna wuu ka baxsaday oo way gaari waayeen markaasaa markuu ciidankaasu isagoo wata maalkay kala wareegeen almadiina almunawara soo galeen
ayuu isaguna habeennimada magaalada soo xaluushay oo uu gurigeeda ugu soo galay zaynab calayhi assalaam gabadha nebi maxamed sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam uuna ayada magangeliyo weydiistay markaasay magangelisay sababtuu ugu yimidna waxay ahayd isagoo doonaya maalkiisa laga soo qaaday markuu rasuulka ilaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam salaada subax u soo baxay oo uu takbiirsaday oo allahu akbar yidhi oo salaada subax xirtay dadkuna ay ka daba xirteen ayay zaynab waxay ka qaylisay safka haweenka waxayna tiri ayuha nnaasu inii qad ajartu abalcaasi bin alrabiic xadiidka macnihiisu waxaa weeye hooy dadow anigu waxaan magangeliyey oo magangelyo siiyey abu alcaasi bin alrabiic markuu salaada dhammeeyey oo uu salaamo naqsaday ayuu rasuulka ilaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam xagga dadka u soo jeestay uuna yidhi ayuha nnaasu hal samictum maa samictu dadow ma maqasheen waxaan aniguna maqlay waxay yidhaahdeen haa wuxuu sala allahu calayhi waaalih wasalam yidhi amaa waladii nafsu muxammadin biyadihi maa calimtum bishayin min dalika xataa samictu maa samictum inahum yujiiru cala almuslimiina adnaahum waxaan ku dhaartay midkay nafta muxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam gacantiisa ku jirto inaanan shayna ka ogeyn arrinkaas jeer aan maqlay waxaad adinkuna maqasheen muslimiintana waxaa ka magangeliya kooda ugu tabar yar oo gabdhuhu ragga waa ka tabar yar yihiin weeye macnaheedu markaasuu rasuulka ilaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam masjidka ka baxay uuna gabadhiisa qolkeeda ugu galay kuna yidhi ey bunaya akrimii mahwaahu walaa yakhlusanna ilayki fa innaki laa taxilliina lahu gabadhayday karaamee joogiddiisa iyo degmadiisa yuuna ku soo gaarin oo yuusan ku taabanin yuusan kuu soo dhowaanin maxaa yeelay adigu isaga xalaal uma ahid oo ayaduna waa muslimad isaguna markaas weli waa gaal sharciguna waa kaas oo gabar muslimad ah nin gaal ah xalaal uma aha oo ma guursan karto waxaa kaloo wariyey xadiidka atabraani islaamidda abulcaasi bin alrabiic ibnu isxaaq wuxuu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu u cidiray oo u yimid ragga maalka abu alcaasi kala wareegay wuxuuna ku yidhi ina haada arajulu mina xayثu calimtum waqad asabtum lahu maalan fain taxsanuu وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به ninkaani waxaad ogsoon tihiin ayaan u nahay waxaadana ka qaadateen maal marka haddaad samafashaan oo wuxuu leeyahay aad u soo celisaan taasi waa mid aan jecelnahay haddaad diiddaanna maalkaasu waa fay uu ilaahay idin siiyey fay waa maalka gaalada lagala wareego dagaal iyo xarbi la'aan idinkaana ku xaq leh markaase waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahayow sala allahu calayhi waaalih wasalam bal waa u soo celinaynaa markaasay u soo celiyeen ilaa heer ay ragga baaldi u soo celiyeen iyo sibraar duug ah
iyo harag duug ah ilaa qori go'is. sidaas ayay maalkiisa oo dhan ugu soo celiyeen oo uusan shayna ka maqnayn. markaasuu abulcaasi markuu maka almukarama maalka ula gadoomay uuna nin walba oo quraysh ah maalkuu lahaa u celiyey iyo kii isaga laftiisa wax ku darsadayba. intaas markuu falay kadib ayuu wuxuu yidhi, ragga qurayshay, miyuu midkiinna maal uu leeyahay agtayda ku haray oo uusan qaadan? waxay yidhaahdeen, maya, ilaahay khayr ha kaaga abaalgudo, waxaana aragnay inaad tahay mid ammaanada oofiya oo kariim ah. markaasuu wuxuu yidhi, ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llahi sala allahu calayhi wala alihi wasalam. waxaan inuusan wallaahi inuusan iga hor istaagin inaan agtiisa, waa nebiga agtiisa sal allahu alayh waali wasalam, ku islaamo waxaan ahayn inaan ka baqay inaad u malaysaan inaan u islaamay inaan maalkiinna cuno, iyadoo uu qofka muslimka ahi maalka gaalka dagaal ka dhaxeeyo xalaal u yahay. markaasaan markuu ilaahay maalkiinna idiin soo celiyey aniguna aan idinku wareejiyey oo aan ka soo jeestay ayaan islaamay. markaasuu maka almukarama ka soo baxay oo rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam almadiina almunawara u yimid oo uu la degay. ibnu hishaam wuxuu yidhi, markuu abulcaasi ibnu rabiic ka yimid ashaam isagoo wada maalka gaalada, waxaa lagu yidhi, maad islaamtid oo aad markaas maalkan qaadatid isagoo maal gaalo ah. markaasuu abulcaasi wuxuu yidhi oo raggaas ku yidhi, maxaa ka xun oo aan islaamidayda ku bilaabi lahaa haddaan sidaas yeelo oo aan wixii la igu ammaanaystay aan khiyaano. zaynab oo abulcaasi loo celiyey. asuhayli wuxuu sheegay in ninka abulcaasi beder ku soo qafaalay uu ahaa cabdullaahi bin jubayr al ansaari. kadibna nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam ayuu u haajiray. nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam wuu ammaanay xididnimadiisa, wuxuuna yidhi, xadathanii fasadaqanii wa wacadanii fa awfaanii. wuu ii warramay, runta ayuuna ii sheegay, ballan ayuuna iga qaaday, waana ii oofiyey. atirmidi iyo ibnu maaja waxay camr bin shucayb bin maxamed bin cabdullaahi bin cumar alcaasi midka runlowga ahaa ka wariyeen inuu aabbihiis shucayb bin maxamed oo runlow la rumaysto ah ayna sugnaatay inuu warkaasi dhegihiisa ku maqlay inuu wariyey awoowihiis cabdullaahi bin cumar alcaasi inuu yidhi, wuxuu ugu soo celiyey nikaax cusub sanadka toddobaad ee hijrada. wuxuu ugu soo celiyey nikaax cusub sanadka toddobaad ee hijrada. abulcaasi markay zaynab islaamtay isaguna uu gaalnimada ku haray ayaa islaamku kala geeyey. markaasuu markan dambe nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam nikaax cusub ugu soo celiyey. dhimashada zaynab gabadha nebi maxamed sala allahu calayhi waaalih wasalam waxaa la oofsaday sanadka 8aad ee hijrada. muslim wuxuu umu catiya ka wariyey inay tiri, markay dhimatay zaynab gabadha rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam wuxuu yidhi, aghsilnaaha
وترا 3 أو 5 واجعلنا في الآخرة كافورا tiro isdhaafsan dhaqa 3 ama 5 marka ugu dambaysana waxaad biyahaad ku dhaqaysaan ku dartaan kaafuur. zaynab waxaa dhaqay umu ayman iyo umu lmu'miniina sawda bintu zamca iyo umu lmu'miniina umu salama calayhim assalaam. umu catiyadan xadiidkan warisay ayadaa gabdhaha ku gudu jirtay almadiina almunawara. markaasuu nebigu sal allahu alayhi waalihi wasalam wuxuu ku yidhi markaad gabdhaha gudaysid ha wada goynin, maxaa jira inay wax ku haraan wejigay u nuurinaysaa, wejiguna waa ku qurxayaa, ninkeeduna sidaasuu ku jecel yahay. in gabdhaha la gudo 4 imaam shaafici iyo maaliki iyo imaam maalik, imaam axmed bin xambal iyo imaam abu xaniifa waxay isku raaceen inay waajib tahay. hadday gudi waayaan ayaa muxuu ahaa jaamicat alazhar fatu ku bixisay. hadday gudi waayaan waaridka gudi waayey ayaa ka mas-uula oo loo qabsanayaa waxay ka yimaada oo dhibaato gabadhaas gaara. zaynab waxaa ku tukaday aabbaheed nebi maxamed sala allahu calayhi waala alihi wasalam, isagaana qabrigeeda galay isagoo uu la socdo ninkay u dhexday abulcaasi. laga bilaabo guriga ilaa qubuuraha albaqiic wuxuu nebigu sala allahu calayhi waali wasalam zaynab ku qaaday nacash loo sameeyey. waxaana la yidhi ayadaa ugu horreysay qof nacash lagu qaado. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. waxaad u jeedaa shariifa safiya maxamed xadaad oo taagan bartuu ku yiilay guriga habaryarteed zaynab gabadha nebi maxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam. gurigaas hore ayaan uga soo warbixinay. boqorada aali sacuud ayaa gurigaas daahirka ah masquusha 1 iyo tan 2 ee xaramka maka almukarama ka dhigay. zaynab gabadha nebi maxamed sal allahu calayhi waalihi wasalam ayadaa ugu weyn gabdhihiisa oo ibnu isxaaq wuxuu wariyey inay zaynab dhalatay markay 30 sano ka soo wareegatay dhalashadiisa sala allahu calayhi waalihi wasalam, ahna 10 sano bicsada horteed. zaynab nebinimada iyo islaamka way soo gaartay wayna islaamtay. almadiina almunawara ayayna u haajirtay duulaanka bader dabadeed siduu ibnu isxaaq u wariyey una ka wariyey caaisha allaha raalli ka wada noqdee. zaynab waxaa la oofsaday sanadka 8aad ee hijrada oo u dhiganta sanadka 629 miilaadiga ah, ayadoo da'deedu tahay ilaa 30 sano siduu alwaaqidi u wariyey. zaynab waxaa lagu oofsaday guriga ninkay u dhexday oo isla markaas ah in habaryarteed koofaartiisuna tahay abu alcaasi magaciisuna qaasim siday u wariyeen asuhayli iyo ibnu xajar oo fatxulbaariga sidaas ku sheegay. abu alcaasi hooyadiisa dhashay waa umu lmu'miniina khadiija bintu khuwaylid, walaasheed oo magaceedu yahay haala bintu khuwaylid oo ayaduna lafteedu saxaabiyad ahayd. markay guursatay waxay hooyadeed u gaday guri, waana gurigaas musqusha ay aali sacuud ka dhigeen. zaynab waxay abulcaasi u dhashay wiil la yidhaahdo cali oo saxaabi ahaa kana mid ah asbaata nebi maxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam, iyo gabar la yidhaahdo umaama ahna midda nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam
dhabarka ka fuuli jirtay iyo tunka isagoo salaad tukanaya oo sujuudsan. umaama waxaa guursaday amiir almu'miniin cali bin abi aalib sala allahu calayhi waalihi wasalam, iyadoo ay faatima calayhi assalaamu kala dardaarantay ayada dabadeed inuu umaama guursado. cali waxaa la dilay isagoo ay u dhaxdo, intuusan dhimanna wuxuu kala dardaarmay almughiira bin nawfal bin cabdulxaarith bin cabdulmutalib bin haashim inuu guursado isaga dabadiis. markaasuu almughiira geerida cali calayhi salaam kadib guursaday, waxayna u dhashay wiil la yidhaahdo yaxya. umaama waxaa la oofsaday ayadoo almughiira u dhaxda. waxaa kaloo la sheegay inayan cali iyo almughiira mid toona caruur u dhalin, wiil iyo gabar toona. waxaan joognaa albaqiic ee almadiina almunawara. kan waa qabriga sayidina ibraahim calayhi salaamu iyo faatima bintu asad, imaam cali hooyadiis, iyo cuthmaan bin madcuun, iyo cabdiraxmaan bin cawf, iyo sacad bin abi waqaas, iyo nin kaloo saxaabiya qubuurahooda. kanna murabbacan waxaa ku jira asayida zaynab calayha assalaamu, asayida ruqaya calayha assalaamu, asayida umu kulhuum calayha assalaamu. saddexda gabdhood ee nebi maxamed sala allahu alayh wasalam halkaanay ku duugan yihiin. halkaana waxaa ku duugan 3 eedo ee nebi maxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam iyo 9 ummahaat almu'miniin calayhim assalaam ajmaciina. halkaana waxaa ku duugan asayida faatima sayidatu nisaa alcaalamiin, waxay ku jirtaa halkan shabaqan gadaashiisay ku jirtaa.